maalintii Isniintii ee bisha Sebtembar ay ahayd 19 waxaa lagu aasay wadanka UK gaar ahaan meel ka yara baxsan magaalada London boqoradii muddada dheer ka talinaysay dalka UK ee Queen Elizabeth II ama boqoradii Elizabeth ee labaad muddo 70 sanadood ayay boqorad ka ahayd wadanka UK waqtiyada qaarna awoodeedu waxay gaari jirtay caalamka daafihiisa oo dhan waa waqtigii dhulka faraha badan leh ay gumaysan jireen ama ay ka talin jireen dawladda UK haddaba aaskeeda ayaa waxa ka dhacay waxyaabo fara badan oo mucjisooyina waxay ku geeriyootay horta UK bisha Sebtembar aynu ku jirro 8deedii muddadii 12 maalmood ahayd ee aaska boqoradda la diyaarinayay inta fara badan telefishinada caalamku waxay ka waramayeen qabanqaabada aaska boqoradda Queen Elizabeth II waxaana lagu qiyaasayaa dadka caalamka kala badh ka mid oo ilaa 4 bilyan oo qof gaaraya in telefishinada ay kala socdeen qabanqaabada aaska iyo aasku sidoo u dhacayayba hogaamiyaasha caalamka markay timaadana waxa ka soo qayb galay hogaamiyayaal ka kala socda 167 wadan oo ka mid ah 193 wadan ee jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa xubnaha ka waxa ka soo qayb galay boqorro iyo boqorado aad iyo aad u tiro badan oo ilaa 18 lagu sheegay tiradooda 55 madaxweyne ayaa iyaguna ka soo qayb galay iyo 25 ra'iisul wasaare marka laga tago dabcan wakiilada ka socday wadamada kale ee iyagu aan madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaarayaasha ahayn ama boqorradaba aan ahayn tusaale ahaan wadanka Shiinaha oo kale waxa ka socday madaxweyne ku xigeenkooda marka hogaamiyaasha tirada leeg ay markaliya isugu yimaadeen magaalada London ayaa haddaba waxa cilad aad iyo aad u weyn noqotay sidii loo maareyn lahaa hoteelada ay degayaan gawaarida qaadi lahayd sidii protocol loo siin lahaa buuxda hogaamiyaasha tiradoodu intaasi ay tahay bartamaha magaalada London oo aaska boqoraddu markii dambe uu ka dhacay ama xuskeedu ayaa waxa uu noqday mid la kala socon waayay oo gawaaridu saxmad aad iyo aad u tiro badan ay kala kulmeen kadib markii jidad fara badan oo bartamaha London hogaamiyaasha loo xiray taa haddaba si loo furdaamiyo waxa la yidhi hogaamiyaasha qudhooda oo badankoodu deeqaaraan basasba u baranin basas lagu guro si saxmaddu ay u sii yaraato arrinta waxa diiday oo kaliya oo codsigiisana la aqbalay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo isagu gaarigiisa caanka ee The Beast loo yaqaan ama bahalka London ku dhex watay marar fara badan jidadka loo xidhayay haddaba baraha bulshadu ay ku kulanto ayaa waxyaabo fara badan oo aan runt ahaantii dhab ahayn la soo gelinayay oo waxa ka mid ah in maadaama maalintii Isniintii ay xusahayd oo fasax laga ahaa wadanka UK oo dhan si boqoradda loogu xuso waa maalintii aaskeedu u dhacayay in sheekooyin fara badan oo ku tiri ku taana oo aan run ahayn baraha bulshada la soo geliyay kuwada ugu la yaabka badan waxa ka mid ahaa ee waliba noqday been fakatay runimo gaadho in la yidhi aas kale oo maalinta Isniinta dhacaya oo ka boqoradda aan ahayn ma jiro arrinta markii laga daba tagay way soo beenowday laakiin dhinac bay run ka ahaydo maadaama sharikadaha ka shaqeeya aaska ama qabuuruhu ay shaqaalahoodii wada fasaxeen marka cidii aasi lahayd ayaan jirin laakiin amar ay dawladdu ka soo saartay oo ay tiri aas kale oo aan ka boqoradda ahayn oo dhacaya run ahaantii ma jirin aaskan boqoraddu wuxuu ahaa aaskii labaad ee dawliga ahaa ee muddo dheer ka dhaca wadanka Britain aaskii ugu dambeeyay wuxuu ahaa 1965 oo ra'iisul wasaarihii hore ee dagaalkii labaad ee adduunyada hogaaminayay wadanka Britain ama UK Winston Churchill ayaa aas dawliga qof loo sameeyo ugu dambeeyay waxa la isweydiin karaa haddaba aaska dawliga muxuu yahay horta kan boqoraddu ahaa iyo ka Winston Churchill oo laba goor ra'iisul wasaare ka noqday wadanka Britain horaantii sanadadii kontomeeyadii iyo waqtigii dagaalweynihii labaad ee adduunyada labadaga goor
ayuu noqday ra'iisul wasaare maadaama markaa uu libin xoog leh ka soo hooyay dagaalweynihii labaad ee adduunyada ayaa la yidhi ha lagu xuso oo aaskiisu ha noqdo aas dawliya marka la leeyay waxa weeye in kharashka ku baxay oo dhan ay dawladdu bixinayso laakiin dhawaanahan sida la xusuusan yahay aasas kale oo waaweyn baa soo maray kadib markii xubno qoyska reer boqor ahaa ama ka tirsanaan jirayba ay dhinteen amiiradii Diana la xusuusan yahay waxa la xusuusan yahay oo kale boqoradda hooyadeed labadaba aas aad iyo aad loo maamuusayo loo weynaynayay ayaa la sameeyey laakiin haddana aas dawliya ma ahayn labada midkoodna ka boqoraddu wuxuu ahaa midaan muddo dheer soo marin sidaan sheegay waddanka UK dadku telefishinada ayay inta badan kala socdeen waxaana la qiyaasayaa ku dhawaad kala badh maalintii aaska Isniintii inay telefishinada dadku hor fadhiyeen sida ay sheegeen ama xogaha laga helay telefishinada la fahaantooda ay tilmaamayeen magaalada London waxaan hubaa in saxmadii faraha badnayd imika ay ka kacday oo dad fara badanina ay nafisayaan oo tusaale ahaan jidadkii xidhnaay oo kale ay imika dib u furmayaan markii aan ka soo baxayay magaalada London maalintii Isniintii aaska boqoraddu dhacayay dalkan Mareykanka aan soo kicitimayay 12kii duhurnimo waqtiga London markay ahayd ayaa waxa la sameeyay 2 daqiiqadood oo ay dadku aamusayaan oo lagu maamuusayo aaska boqoradda waxa kale oo laakiin la yaab lahayd maadaama dadka badankooda 2 daqiiqo ay isu taageen oo ay u aamuseen boqoradda haddana qofkii muraadkiisa iska wata isagu aanu joojinin iska socda ma arkaynin cid kale maxaad boqoradda u maamuusi weydiyo maxaad isu taagi weydiyo maxaad u aamusi weydiyo ma arkaynin maadaama ay dadka badankoodu isxilqaamayeen haddana kuwa diyaaradahoodu ka tagayaan ama hawlo kaleba iska watay iyagu aan boqoradda iyo maamuuskeedii u jeedin cid dhibsanaysa iyo cid iyaga dhibaato u geysanaysa midna ma arkaynin arrin la yaab leeyahayd arrintan soo martay waddanka UK oo sidaan sheegay muddo dheer aan soo marin